mahadsan tahay Dr. Cabdulqaasim waana ku dhowahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وبعد قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم صدق الله العظيم وحان مهد علنا يا إلهي marka labaadna waxaan mahad celinayaa bahda xafiiska jaariyadda galmudug oo ay u marti qaadeen halkan in aan kelmad ka soo jeediyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan sii raacin lahaa laba kelmadoo laga codsaday oo midna tahay dardaaran midna ee kala soo jeedin awalan waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada iyo da'da soo koraysa iyo jiilka soo socda ee ummadda Soomaaliyeed in ay manhajka iyo muctaqidka iyo macallimiinta dadka ay ka dhiganayaan in marka hore waalidiintooda ka baaraan ayaguna ay ka forjignaadaan ayna ogaadaan manhajka waxbarasho ay qaadanayaan iyo caqiidada islaamka ay qaadanayaan si aan loogu khaldin wado garab sarsan tii nabiyullaahi maxamed loo soo dhiibay in waxaan diinahayn diin looga dhigo ictiqaad faasida lagu barbaariyo ama ay wax ku bartaan ka bacdina ay naftoodana ku waayaan naarna ay ku galaan waxaan u dardaarmayaa waalidiinta Soomaaliyeed macallimiinta iyo manhajka carruurtooda la barahayo wax ay kontaroolaan oo ay yaqaaniin oo og yihiin inuu noqdo haddii aysan aqoonna dadka yaqaan oo ahalka oo nasiixa oo garanaya manhajka iyo muctaqidka mustaqiimka inay kala tashadaan waxna ka bartaan dowladooda ay u dhiibaan tan labaad xafiiskan cusub ee laga furay magaalada Minneapolis state-ka Minnesota waxaan u rajaynayaa isaga iyo hawadiinasba kula dardaarmayaa in ay ka shaqeeyaan shayga wax laga shaqeeyo u muhiimsan oo ah bulshooyinta iyo dadka Soomaaliyeed sidii la isugu keeni lahaa khaasatan deegaanka ay batalaan dadka ku nool sidii la isugu keeni lahaa loo midayn lahaa hal maamul iyo hal madaxna ay u yeelan lahaayeen annaguna ka odayaal ahaan iyo ka cawm ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan gacanna ka siino kuna dadaalno iskuna garab taagno waqti iyo wax dheefna aan gelino wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu